bismillahi rahmaani rahiim. halkan waxaan doonayaa aan ku bixiyo war-saxaafadeed aan uga hadli doono dacwad la sheegay inay iga dhan tahay oo xeeladaha qaranka uu ka wado maxkamadaha qaarkood. anigoo ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxaan cadeynayaa in xeeladaha qaranka uu doonayo inuu dacwad siyaasadeysan iga sii socodsiiyo si aan waafaqsanayn sharciga isagoo ku xadgudbay qodobka 35 oo sheegay in qof kasta bari yahay ilaa xukun dhaqan galay uu ku dhaco. wuxuu xeeladaha isoo xiray iyadoo uusan jirin asbaab ku xusan qodobka 34, 39, 38, 32 ee xeerka habraaca ciqaabta Soomaaliyeed, isla markaana ku xadgudbay inuu raaco qodobada 39 iyo 66 ee xeerka habraaca ciqaabta Soomaaliyeed maadaama uusan garsoorihii u geynin asbaabtii iyo duruuftii iyo cadeymo ku kalifay inuu isoo xiro. iyadoo qodobadaas uu igu eedeeyay ay qasab ka dhigayaan inuu haysto amar maxkamadeed maadaama ciqaabta ay ku jirto dil, ayuu isoo xiray amar maxkamad la'aantii asagoo ka soo horjeeda qodobka 42 ee xeerka habraaca ciqaabta Soomaaliyeed qasab ka dhigaya inuu haysto amar maxkamadeed oo waajib ku ah sida sharciga uu dhigayo xeeladaha inuu la yimaado. wuxuu ku xadgudbay qodobada kale ah 50, 60, 70 xarafkiisa labaad iyo xarafkiisa labaad xeerka habraaca ciqaabta iyadoo lala akhrinayo 13, 39, 3, 44, 30 iyo 77 xeerka habraaca ciqaabta Soomaaliyeed. waxaa ka dhashay xariga sharci darrada ah dil ula kac ah oo ay ku dhinteen 5 ruux oo kamid ah ilaaladeedii gaarka ahayd, kuwaasoo loo diiday inay eheladooda arkaan laguna aasay si qarsoodi ah xabaal wadareed iyadoo asbaabta dhimashadana aan marna la cadeynin. xeelalyuhu ma keenin asbaabta ku xusan qodobka 25 ee xeerka habraaca ciqaabta Soomaaliyeed ee dhigaya in garsooraha la horgeeyo cadeyn faldambiyeed ee aan gacmaha kula jiray ee cadeynaya inaan ku soo duulay sida ugu eedeeyay qodobka 184 madax banaanida iyo qaranimada Soomaaliyeed sida ku cad qodobka 39 iyo 45 xeerka habraaca ciqaabta Soomaaliyeed. garsooruhu waa inuu eego fulinta xariga. xeeladaha wuu qirtay in aysan haysanin amar maxkamadeed iyagoo weydiistay garsooraha inuu u baahan yihiin muddo 5 maalmood ah, halkaasna garsooraha uu ku siiyay muddo 24 saacadood ah, kadibna ay ku fashilmeen in ay soo cadeeyaan wax cadeyna oo aan dambi gacmaha kula jirin. haddaba xeeladaha isagoo gacan ka helaya madaxda dalka u sarreysa oo adeegsanaya awoodda xafiiskooda faragelin qaawan ku sameeyay garsoorka, wuxuuna hor istaagay ku sameeyay dhaqangalka go'aankii gudoomiyaha maxkamadda gobolka ee lambarkiisu ahaa mabaga jiitin la jiitin 36 xal 2007 ee taariikhdiisu ahayd 12/12/2017 kaasoo uu xukmiyay in xariga la ii geystay uu ahaa sharci darro xorriyadeedina dib ii siiyay isagoo cadeeyay in dacwadu aysan ku noqosho lahayn sida uu qabo qodobka 13aad ee xeerka habraaca ciqaabta Soomaaliyeed. waxaan maadaama si sharci darro ah igu xadgudbay xeeladaha iyadoo uusan dalka ku jirin xaalad degdeg ah sida ku cad qodobka 161 ee dastuurka federaalka meelgaarka ah iguna socodsiiyay xadgudubyada kor ku xusan oo dhan, ayuu falalka foosha xun sameeyay kuna xadgudbay waajibaadkii sharciga ahaa isla markaana sida ku cad qodobka 318, 447, 461, 462, 463 iyo 471 xeerka habraaca ciqaabta Soomaaliyeed. waxaan halkan ka cadeynayaa inaysan jirin dacwad sharci ah oo la igu haysto, mana jirto cid aan u wakiishay oo qareen ah inay dacwadaas qareen iiga noqoto. waxaan bogaadinayaa dadaalka odayaasha dhaqanka ay ku doonayaan iyo dadaalkii ay ku doonayeen xasilinta nabadda, xal raadinta iyo xakameynta xiisadii ka dhalatay weerarkii bahalnimada ahaa ee lagu soo qaaday 17 Diseembar, kaasoo lagu dilay 5 kamid ah ilaaladeedii, lagu burburiyay hantidii gurigeyga, laguna ballaqaystay hoygeygii oo ilaa hadda aan hadlayo hantideedii, agabkaygii, wax allaale wixii guriga iga yaalay oo ay ku jiraan dukumiintigii safarkayga ay gacanta ku haysato xeraalinta iyo hay'adda nabad sugidda. waxaan ka digayaa dadka magaca dawladda iyo garsoorka huwan ee doonaya inay colaad har huriyaan in ay magaaladan fidno dambe iyo colaad dambe ay ka huriyaan. cadaalad waan maray, maxkamad ayaa xukun riday, sharci darro inuu xarigayga ahay sheegtay, cadeysana inuusan jirin go'aankaas ku noqosho uu leeyahay maadaama lagu fashilmay in cadeymihii maxkamad la igu horkeeni lahaa. sidaas daraaddeed waxaan u haystaa waxa magaalada ka socda oo ognahay har iyo habeen kana warqabno god kasta oo la galo iyo meel kasta oo la maro in ay tahay dacwad siyaasadeysan
la soo abaabulay loona isticmaalay awoodda iyo dhaqaalaha dawladda lana doonayo in dalka loogu huriyo colaad waxaan ugu filan dib intii hore oo dhacay waxaan annagoo ah dadkii dhibaatada loo geystay ku dadaalnay inaan xasilino magaalada falceliskii ka dhashay arrintaas waxaan halkan ku cadaynaynaa cid dambe oo mas'uuliyaddaas falcelis ka dhalata qaadaysa inaysan jirinin annagana aan u hoggaansannahay dastuurka dalka oo ah midka ugu sarreeya waxaan sidoo kale bogaadinayaa go'aankii keyga la midka ahaa ee xeelaliyaha kula kacay labada xildhibaan ee baarlamaanka ay guddiga joogtada ee baarlamaanka ay ku laaleen kuna diideen sharci darradiisana ku caddeeyeen sidaas oo kale ayaan rajaynayaa in dadka Soomaaliyeed ay u ogaadaan waxa socdaa inay tahay shirqool siyaasadeed oo la doonayo in lagu kaco mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay siyaasadda isku hayaan madaxda dalka gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waa taariikh madow oo dalkan hore u soo martay in qodobka 184 la isku eedeeyo oo khiyaano qaran la isku tuumo ka bacdina la isku dayo in qofkaas la dilo waa taariikh mugdi ah oo dalkan hore u soo martay mana doonayno inay dib u noqoto waa maasantiin salaam calaykum